ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika marka loo soo gaabiyo magacooda loo yaqaan AMISOM ayaa la guddoonsiiyay qalabka fududeeya maqalka kadib markii ay ku dhagabeeleen weerar ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ciidamadan oo dhashay dalka Uganda oo tiradoodu tahay 23 askari ayaa ku dhagabeelay jugta weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan saldhigyada waxaana qalabkan loo siiyay si ay si fiican wax ugu maqlaan mid ka mid ah askartaas oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu muddo 4 bilood ah dhibaato ku qabay maqal la'aan ka dhalatay dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab intii ay ka tirsanaayeen howlgalka midowga Afrika ee AMISOM askarigan oo magaciisa riyay isla markaasna aan fasax u haysan inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inuu maqalkiisii waayay markii uu qarax ka dhacay meel u dhow saldhig ay ku sugnaayeen qalabka lagu guddoonsiiyay askartan ku dhagabeelay dagaalada Al-Shabaab ayaa waxa bixisay askartan ku dhagabeelay dagaalada ay la galayaan xarakada Al-Shabaab waxa bixisay hay'adda wax maqalka Istaraki Haynin Foundation waxayna hay'addu ballan qaaday in ciidamadaasi inay lacag la'aan ku sii doonto baytariga loo isticmaalo qalabkaasi xafladadan lagu siinayay qalabka ayaa waxa ka soo qayb galay wakiilka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Francisca Madiria oo isagu guddoonsiiyay qalabkani وعاول عبد الرحيم كيس عاول برعاور بهنت مدح بنان في وسنيس مقالة هرقيسا